kulankan oo looga hadlayay isku xirka ka hortagga askaraynta iyo ka tashiga qabyo qoraalka qorshaha qaran ee caruurta Soomaaliyeed heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka kala socday maamul goboleedyada dalka iyo mas'uuliyiin kale kaasi oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka xukuumadda Soomaaliya aadan cismaan qooshe la taliyaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta dawlad goboleedka Jubbaland oo ku hadlayay afka dawlad goboleedyada ayaa bogaadiyay kulanka aqoon kororsiga ahaa. waxaan u mahad celinayaa madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu hore dawladda federaalka ee wasaaradda haweenka iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ayadana noo sahashay in aan meelahaas kala duwan ka imaan halkan iskugu imaano muddada 4 maalmood aheyd aan review garayno dokumentiyada kala duwan ha noqoto NAP National Action Plan ha noqoto maxaan ku dhahaa CRC iyo presentationada kala duwan waxaan ognahay maanta markaan halka ka galbanayno 8 qodob meesha wax noo marayaan qodobkaas aan la galbanaynaa Soomaaliya waad mahadsantihiin howlwadeennada iyo dhammaan mas'uuliyiinta wasaaradda ee ay ugu horeyso wasiirada Xaniifa Faaduma Maxamed Cali agaasimaha waaxda caruurta iyo qoyska ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka soo qayb gashay kulanka ayaa ugu mahad celisay doorka ay ka qaateen ka soo qaybgalayaasha qabsoomida barnaamijkan qorshaha qaran ee ilaalinta caruurta Soomaaliyeed iyo istiraatiijiyada ka hortagga askaraynta caruurta waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaashii sida weyn u shaqeeyay 4 maalmood ay ugu horeeyaan dawlad goboleedyada dadka nooga socday gobolka Banaadir ardaydii oo ka socotay social work iyo wasaaradaha safka hore oo ka tirsan ayaga guddiga u dhisan maxaa la xooga shaqeeya ilaalinta caruurta sidoo kale waxaan rabaa si gaar ah in aan ugu mahad celiyo dadkii ka socday howlwadeennada wasaaradda haweenka oo ugu horeeyo Maxamed Deeq runtii iyo Nuun Zahra kulli dhammaan hal uma sheegi karo oo aad howl badan u qabtay. Xaniifa Maxamed Ibraahim wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wasaaraddu ay ku dadaali doonto ka hortagga askaraynta caruurta Soomaaliyeed. waxaan ognahay dhibaatooyinka caruurta Soomaaliyeed haysato ee dalkeena guud ahaan caruurtana waa mustaqbalka dalkeena waxay ka mid yihiin hantida dalku uu leeyahay sidaas darteed waxay ku jiraan caruurta waxyaabaha ugu muhiimsan oo ahmiyad gaar ah u leh dalkeena guud ahaan waxaana laga maarmaanaa inaan runtii aan siino waqti iyo inaan ka fikirno mustaqbalkoodii iyo sidaan u horumarin lahayn iyo caqabadaha haysto waxaan ku faraxsanahay inaad review ku samayseen ama aad dib u eegis ku samayseen qorshaha qaran ee caruurta aana isku keenteen fikradihiina إن شاء الله وحنا أنا ريبورتينا يعني إيش كسمين دونا يعني أخرين دونا أنا هو مركز وقاعد دونا لنكا يقولين تيلا إن شاء الله. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha Soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu dhameystirayo qabyo qoraalka qorshaha qaran ee caruurta Soomaaliyeed Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.